ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخوتي في العقيدة إلهي سبحانه وتعالى sida san hayna waafajiyo waxaan isku dayi doonaa inaanu xoogaa in sha allahu tacaala kooban ka nidhaahno ee qabasaat min qisati yuusuf ama iftiinno ama tusaalayaal ka mida qisada nebi yuusuf sa wada ogsoonteen qur-aanka waxaa ka mid ah suuratu yuusuf la yidhaahdo waxaan filayaaba nebi yuusuf meel kaloo qura mu'min aali fircawn markuu ka warramayo quroo kalaaba qur-aanka meel kale lagaga sheegay waa qiso ka gedisan qisaska qur'aanku sida kale ay u qoran yihiin waa qiso bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii suurad qura ku wada jirta meel qura ilaahay subxaana wa tacaala kusoo wada arooriyey waa qiso ku bilaabanta riyo kuna dhammaata riyada fasirkeedii waa qiso wax badan laga faa'idi karo weliba wadcigan aynu nool lahay iyo casrigan dambe la joogo waa qiso runtii fawaa'id aad u tiro badan laga fahmi karo walidalik ayaa bacd ala'imma imaam ibn اlqayim fi kitaabihi daa waxau ku tilmaamayaa suuratu yuusuf alfa faa'ida baa ku jira buu leeyay haddii ilaahay fursadi siiyana buu yidhi kun faa'iide ayaan ka qori doonaa laakiin maynan arag waxuu ka qoray akthar maa qiil waxaan aragnay طulaab alcilmi almucaasiriin in ka mid ah oo 100 faa'iide ka tirinaya moxamed saalix almunajid oo 100 faa'iide ka tirinaya qisada tani waxaa la yidhahdaa suuraddani waxay nebiga ku soo degtay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wakhti oo aada u dhibanaa wakhtiga loo yaqaano caamil xusni aw bacdah ayay soo degta bay yidhaahdaan wakhtigii uu nebigu waayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh sanadkiisii daakhiliga ahaa iyo kii khaarijiga ahaa ee basharka ka mid ahaa yacnii waxaa geeriyooday adeerkii abi taalib oo tolliimo ugu hiilinayay oo aan agtiisa loo soo maraynin waxaa isla sanadkaa geeriyooday haweenaydii wax walba la qaybsatay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee uu nebigu intuu noolaaba xasuusteeda u hayay ilaa iyo ay caayishi iyadoo geeriyootoo maqan ay caayishi ka qiiroonaysay ama ka hinaasaysay siduu nebigu u hadal hayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh khadiija bintu khuwaylad ridwaan ullahi calayha oo ka mid ah kuwuu nebigu yidhi dumarka dhowr baa dhammaystirmay ay ka mid ahayd khadiiji wakhti aada uga adag oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cid waliba soo diiday oo uu daa'if tegay oo ka soo noqday oo dhib oo dhan la kulmay ayay soo degtay baa la ydhahaa qisada tani iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebiga u tilmaamayo in ambiye isaga ka horaysay oo rusushii ilaahay soo diray ka mid ahayd imtixaanaadka lala wadaago waa suurad runtii suwar badan oo imtixaana ka sheekaynaysa waxay ka sheekaynaysaa nebi la imtixaamay
oo kalgacalkii aabihii lagu itixaamay. waxay ka warramaysaa imtixaan kale isagoo ku dhacay oo walaaladii kayd u degeen oo god ku rideen. waxay ka warramaysaa iyadoo haweenay isku dayday inay kufsato. waxay ka warramaysaa iyadoo la xidhay oo uu xabsi galay oo jeel uu ku jiro. waxay ka warramaysaa imtixaan tiro badan leh iyadoo madaxnimo lagu itixaamay oo uu ummadda madax u noqday. waxay ka warramaysaa runtii fitan tiro badan oo marka ilaahay subxaana wa tacaala shiddo keenaba haddana faraj ilaahay uu furayo subxaana wa tacaala inna maca alcusri yusraa ay ku gabagaboobayso isagoo fitankaasi oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyey. idan qisada tani waa qiso runtii meelo badan oo laysdul taaga leh. waa suurad xataa tarkiibkeed qaabku u yaalla ay ka gedisantahy. waa suuradda qudha ee 4 riyo kusoo wada aroortay iyadoo aan rajaynaya qur-aankaba in 7 riyo ku jirto. yacni nebi ibraahim riyadiisa iyo suurat alfatxi ta nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qisatu beder suuratu ali cimraanta ku saabsiisan iyo 4 riyo oo ku wada jira fii suurati yuusuf. isagoo riyooday, 2 jeelka kula jiroo riyooday, boqorkoo riyooday, 4 riyo oo ku wada soo arooray qisadatan. qisadatani runtii waxyaabo tiro badan bay leedahay. ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya laqad kana fii qasasihim cibra liuli lalbaab ma kana xadiian yuftara. ilaahay subxaana wa tacaala qisadatan waxyaabaha tirada badan le uu kaga warramayo waxaan jeclahay caawa inaynu deris ka mida qaadanno. haddii ilaahay nolosha fusxa ka bixiyo oo ay suurto gasho jawaanib kale mar kalaynu ka eegi doonaa. waxaan ka eegaynaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala nebi yuusuf gurigii uu ku soo koray oo dhibi ka dhex dhacday oo mashaakil qabsaday oo kala durkay oo kala lumay iyo xalkii loo helay. ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya laqad kana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaat lisaa'iliin. nebi yuusuf iyo walaaladiiba waxa idinku sugan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala aayaat baa ugu sugan lisaa'iliin. waa qiso markaa u baahan daraaso aada u tiro badan leh. qisadatan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa nebi yuusuf iyo walaaladii inay aayaad ku sugan yihiin. maxay sameeyeen nebi yuusuf iyo walaaladii? ilahay wuxuu ku tilmaamayaa id qaaluu layuusufu waakhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusba ina abana lafii dalaalin mubiin اqtuluu yuusufa aw iطraxuuha arda yakhlu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdihi qowma صaalixiin. ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaana wa tacaala waxaa aayaadku ku sugan yihin baa la yidhi markay yidhaahdeen nebi yuusuf iyo walaalkii ayaa aabba inaga jecel yihi innagoo annaguna aanu nahay bay leeyihin cusba koox aanu nahay. ina abana lafii dalaalin mubiin. aabba bay leeyihin baadi cad ayuu qadiyaddan kaga sugan yihin. mas'alada tanna aabbo ma asiibin bay leeyihin waayo 2 qof in cusba koox dhan laga jeclaadaa waa miisaan aan saxsanayn xasba iddicaa'ihim. awalan nebi yacquub waxay ku eedaynayaan inuu yuusuf iyo walaalkii ka jecel yahay. horta jacaylku qalbiga dega ilaahay baa xukuma subxaana wa tacaala qulubta bini aadamka. qofka muslimkaa waxaa saarani waa inuu cadaalad sameeyaa alcadaala. laakiin qalbigu cidda uu raacayo ilaahay baa shaqo ku leh. ilmaha aada dhashay inaad u cadaalad samaysaabaa korkaaga saaran. laakiin basharku haddana ilmaha uu dhalay qalbigiisa way ku kala wen yihin. inaad u cadaalad samaysiyo inay qalbigaaga ku kala weynaadaan waa 2 kala gedisan. nin carbeed oo reer miyaba waxaa la yidhaha carruurtaada ayaad u jeceshahay kolba kii ugu yar ama baahi qaba buu yidhi. yacni un odaygiiyo islaantu hadiyo goor waxaa laga yaabaa ka yar unay siitidaanka ugu yar oo isaga loo dareemayo in dacf iyo dhibi hayso oo ay kaa soo dhoweeyaan. asbaabo badan baa keena in carruurta la kala jeclaan karo. waxaa laga yaabaa inay ku kala dhega nugul yihiin. midna markuu yeedhaada maqlo inuu hooydu ka soo horrayso oo kuu yeedhayo. midna waxaa laga yaabaa adigoo la hadlayaba inaanu dheg kuu raaricin. idan inaad u cadaalad samaysaa waa shay. kalgacalku laakiin waa masale kale. walidalik baa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh
haweenkiisa wuu cadaalad samaynayay laakiin wuu kala jeclaa haddana dadka ayaad u jeceshay baa la yidhi caaisha buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma qarsaninba dadka ayaad ugu jeceshay markii la yidhi caaisha ayuu yidhi dabeetana su-aal kaley ku celiyeen wuxuu yidhi aabaheed idan kuwa ugu jeclaa wuu sheegay laakiin haddana wuu cadaalad samaynayay markay cadaalad timaado oo isagoo buka ayuu wuxuu lahaa caawa xaggaan ahay isagoo xanuunsanayaa la siday nebiga xataa mabiidka inuu guri u hoydo wuxuu tijaabinayey isagoo buko oo la sido oo xanuunsanaya in garbaha la galo uu habeenba meel seexdo oo yidhaahda aynaana caawa xaggaan ahay uu yidhaahdo la yidhahdo guri heblaayaad ku beegantay markii dambe ay haweenkiisii u naxariisteen oo ay dareemeen nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh maadaama oo caaisho jeclaa inuu ku bukaankiisa lagu baxnaaniyo guriga caasho la dhigo oo halkaasi lagu baxnaaniyo yani waxaan uga jeedaa jacaylka qalbiga ah waxyaabo badan baa keena qofku inuu cid jeclaado amaa waajibka qofka saarani waa inuu cadaalad sameeyo yacquub may ahayn waadna kala jeceshaba in lagu eedeeyo xataa hadday jirto mar hadduu cadaalad samaynayo dembi maaha inuu qofku kala jeclaan karo laakiin ilmo yacquub waxay ismoodsiiyeen arrin ah yuusuf iyo walaalkii in loo kalgacal badan yahay oo yacquub u kalgacal badan yahay arrintaana waxay ku tilmaameen yacquub inuu baadinimo kaga sugan yahay waase iyagu sheegteen waxa uu qur-aanku markan inoo tilmaamaya masaa-isha amraad alquluub xanuunada qalbiga ku dhacaya siday khatarta u yihiin qofku hadduu qalbiga ka bukoodo oo qil iyo xaqd iyo xasad iyo buqdi iyo waxaasi hadday qalbiga galaan inay qoys xataa mujtamac ballaadhan ka kaalayo qoys inay dumin karaan oo ay kala dareerin karaan waxay masaladani tilmaamaysaa ilmo yacquub mas'aladani xadkay la gaadhay waxay la gaadhay inay soo jeedinteedu noqoto uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu arda yuusuf in la dilo yuusuf jariimadu galay waa maxay ma dembuu galay xataa haddii yacquub buu ahaa ka wax jeclaaday yuusuf isaga waxbaba ma samaynin laakiin markay dadku xaasidnimada iyo xaqdiga iyo qalbigu markuu xumaado waxaa ku dhaca qofka indhala-aan mawaasiinta ka lunta sida wax loo qiimeeyo xataa ma garta u walidaalika ilmo nebi yacquub waxay qaateen fikradda ah in la dilaba yuusufkaa yar ee walaalkooda ee aan waxba geysanin in la dilo go-aanka ah bay qaateen waxay culammadu yidhaahdaan qofku hadday cadhadu ku biirta bay yidhaahdaan xiqdi bay isu rogtaa xiqdigu hadduu sii biiro bay yidhaahdeen xasdi buu isu rogaa idan waxay yidhahdaan culammadu waa maraatib isdaba taalla alcadaawa waalbaqdaa min alghadab bay ka soo bilaabantaa bay yidhahdaan dabeetana xiqdi bay tagtaa kadibna xaasidnimay tagtaa xaasidnimaduna waa qofka inaad balaayo un la jeclaato adigo aan adigu waxba ka helaynin qolada tani ilmo nebi yacquub waxay qaateen go-aanka ah walaalkood inay dilaan ama se fogeeyaan waxay kaloo qaateen aw iطraxuuha ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdihi qawman saalixiin bal aayadda u fiirso waxay leeyihiin aan ka takhallusno kan yar oo dillo ama fogayno oo lumino dabeetana shayطaanku waa cajiib insaanka markuu jariimada gelayo wuu u fudaydiyaa jariimadan laba sababood buu ku fudaydiyey kow marka hore wuxuu ku fudaydiyey natiijada ka ratibmaysa inay wanaagun tahay oo ah marka kan yar iyo walaalkiiba laga takhalluso waxa soo baxaya bay yidhahdeen yuusuf haddaynu ka takhallusno waxa ka soo baxaya waxa weeyaan bay leeyihiin alamri alwaaqic inuu yacquub u hogaansanaado oo hadda inuu innagayna jeclaado waa wasiilo jacaylka yacquub lagu raadinayo dilku dil baa waxaa lagu raadinayaa maxay jacaylka nebi yacquub alamri alwaaqic bay leeyihin odagu waa isaga hoggaansami doonaa markaynu ka takhallusno yuusuf cid kale ma taale de inagunba alabnaa'i alwaxiidiin lilab aabbaha yacni carruurta qudhow haystaa waa innaga marka dee aabba carruurtiisa kama maarme wayna jeclaan doonaa marka waxay leeyihin yakhlu lakum wajhu abikum aabba wejigiisa keli inoo noqonayo aynu ku keliyaysanaynaa shayطaanku markuu wax sawirayo ilmo nebi yacquub badiihiyaad waxyaabo fudud fudud oo aad u tiro badan buu ilowsiiyey wuxuu ilowsiiyey ma is odhanin
war armaa jariimadiinuba muuqataa haddii aad fashishaan oo jariimadaba la ogaado yacquub miyuu jeclaan lahayaa markaa markay inankiisii dilaan ismay weydiinin aabbahood maxaa ku dhici doona jacayl badaayaar buu indhabeelaa oo mushkilad kale qabsataa ismay weydiinin mu'aamarada ama jariimada sida loo fulinayaa armay fuliba weyda oo sidaad ugu tala gashay u socon weyda ismay weydiinin yacni wixii khayaaraad jiray oo dhan ixtimaalaad jiray oo dhan shaytaan wuxuu ka tusiyey mid quroo ah ismay weydiinin armuu ninkani dhimanba waayo idinku soo noqda isagoo madaxa iyo waxaa la kulantaan waxaasoo dhan tirada kumay darin waxay ku xisaabtameenuun hadday jac iyo jac kaga siiyaan in kan yarina tegayo odayguna uu jeclaan doono arrinkuna uu hagaagi doono weliba waxay intaa ku dareen dee toobaduna ma foga bay yidhahdeen isaga markaynu ka takhallusno markaan baynu xajka tegaynaa soo weysaysanaynaa waa masala fudud watakunuu min bacdihi qawman saalixiin baa la leeyahay waxaa la sii bilaangaraynayaa marka isaga laga takhalluso kadib in la toobad keeni doono waa toobaduna dee tajuba maa qablahaayo inay fiicnaan doonaan saasaa bilaan lagu dhigta mas'aladani waxa ay ku tusinaysaa marka insaanku marka uu dariiqa qaldan maro jaraa'imta sida uu u sawiraa ee uula fududahay waxa ay rabaan inay dilaan waa walaalkood xanuun qalbi unbaa ku dhacayoo colaad ah kay colaadda ku fulinayana ka takhallusayaan waa walaalkood waxay colaaddaa ku raadinayaanna waa aabbahood inay keli ku noqdaanoo uu jeclaado ayay ku raadcaynayaan dembiga xagga alle ka dhici doonana walaalkood isma weydiinayaan isaga iyo arrinkiisa laakiin dembiga xagga alle ka dhici doonana inay ka toobad keeni doonaan ra'yigan bay qaateen ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yuusufa waalquuhu fii ghayaabati اljubbi yaltaqitu bacdu sayaara in kuntum faaciliin ilaahay faraj buu u furay nebi yuusuf oo mid yagii ka midun baa yidhi weer ha diline meelaha godan iskaga tuuro dadkaa socotada iyo waxaasi ha qaataanoo hayna dhaafaane bacda muxaawalaat sida qur-aanku tilmaamayo suuradda ma tafsiirayno laakiin meelahaynuu dan leynaynu tilmaami doonaa bacda muxaawalaat aabbahood inay isku dayaan inay ku qanciyaan oo u warramaan oo yaa abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wainaa lahu lanaasixuun arsilhu macana gadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun qaala inii layaxzunanii an tadhabuu bih waakhaafu an ya'kulahu الdi'bu waantum canhu gaafiluun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay waxay dood soo samaysteen iyo siday rabeen inay yuusuf u qaataan iyo aabbahood siduu u shakisnaaye uga warwarsanaaye kolba meel isu taagaya iyana isku dayeen godku istaagaba inay ka saaraan oo ra'yigooda ay ku fuliyeen qadiyaddii waa fuliyeen walaalkood god bay ku rideen nebi yuusuf wuxuu la kulmay mashkilad ah colaaday inay qabsato oo cid kaa foge hadday ku colaadiso waad qaadan kartaa laakiin kii kula dhashay inuu noqdo ka ku dilaya waxaad sawirtaa yuusuf oo ilmo yara oo walaaladii daclada hayaan oo meesha loo wada ay tahay in la tuuro oo dabeetana inta god lala tegay la sii wado oo aan weliba godka si caadiya loogu radayna khayaabat aljubbi saa ilaahay tilmaamayo meel madow oo wax qariso oo god ka sii mida la rabo in la sii geeyo oo arkaya walaaladiiyo intay isu kaashadeen midba dacal hayo god lagu sii ridayo haadihi suura maxay maskaxdiisa ku reebaysaa ilmaha yar ee haddana dareemaya iyagoo intay halkaa dhigeen aanu naxariisan ee kaga dhaqaaqay oo meesha kaga tegay qisada tani waxay tilmaamaysaa marka bukaanada qalbiga ah ee xaasidnimada iyo xaqdiga iyo qilliga iyo waxa la nooca ah hadday bulsho degaan oo mujtamacaadka dhexdooda ay degaan mujtamacaasi inuu noqdo mujtamac cafina mujtamac uraya oo burburaya mujtamac kala lumaya inuu noqonayo natiijadii falkan ay sameeyeen ilmo yacquub waxay noqotay in aabbahood inay keli ku noqdaan oo uu jeclaado daaye ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiib in indhuhu caddaadeen murugo iyo tiiraanyo daraaddeed
inuu taagnaa inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah. odaygii taasaa ku dhacday. waxay sababtay walaalkood oo yuusufi inuu god galo oo dabeetana godkii laga qaado oo kooxi kaxaysato oo dabeetana alkariim ibnulkariim 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 isagoo ah, nin 3 nebi ku abtirsada isagoo ah, in dabeetana la addoonsaday alxor ibnulkariim isagoo ah, in la addoonsaday, in suuqa silaca wax lagu iibiye la geeyey washarawhu bithamanin baksin daraahima macduudatin wa kaanuu fiihi min azaahidiin. ilaahay tilmaamayo suuqa